markaa madaxweynaha waxaan ula lahaa madaxweyne cid abaal kuu sheegan kartaa ma jirto, cid dayn kugu lihi ma jirto, cid waanu kula soo shaqaynay haddii aan kuugu baani kartaa ma jirto, cid kastoo aad u aragtay inay kula shaqayn doonto magacow. haddaad saxaafadda taagnaa jiray oo aan odhan jiray biyo ma hayaan oo iskuul ma hayaan oo waddo ma hayaan inaan wasaaradaha maanta laga bilaabo hor taagnaado. madaxweyne muuse biixi cabdi maanta wuu guulaystay, waxaanu gaadhay meeqaam ay adag tahay in madaxweyne afrikaani gaadho oo ah meeqaamkii uu gaadhay 1967 madaxweyne aadan cabdulle cismaan. madaxweyne muuse biixi 2017 markii la doortay waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo horjeeday markii la doortay, laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee madaxweynaha soo hambaliyeeyey ee gurigiisa ugu tegey. madaxweynaha maanta aan dhisayna ilaa maanta dadka soo salaamay weli meehi oo ma arag, sababtuna wax kale maahee muraad gaar ah oo aan madaxweynaha ka doonayay baan jirin. xukuumad wanaagsan oo tayo leh oo ummadda qancisa dhiso. maanta wuu guulaystay, waxaanu gaadhay meeqaam ay adag tahay in madaxweyne afrikaani gaadho oo ah meeqaamkii uu gaadhay 1967 madaxweyne aadan cabdulle cismaan. waxaan halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo kooban kaasoo ku saabsan doorashooyinkii isku sidkanaa ee waddanka ka dhacay 13 bishan aynu ku jirno. waana sidan nuxurka shirkayga jaraa'id isagoo kooban. marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad maanteed iska leh. doorashooyin culculus oo miisaankooda lahaa si nabadgelyaa oo hufan oo hagaagsan inoogu suurageliyey. haddii aan ilaahay inoo fududayn arrinkaasi inooma fududaadeen. arrin adduunyada u wada fududna maaha. marka ugu horeysa ilaahay baynu u mahadnaqaynaa mahad iska leh. marka labaad waxaynu u mahadnaqaynaa shacbiga jamhuuriyadda somalilan meelu joogaba oo si nabadgelyaa oo mudakharnimo ah oo wadaninimo ah oo sharaf loo codeeyey. marka kale waxaynu u mahadnaqaynaa xukuumaddii hawshaa qabatay maamulka guud ee waddanka gacanta ku haysay oo iyana doorashadaasi mudakharnimo ah u qabatay. marka xigayana waxaa mahad iska leh oo in la xuso mudan tartamayaashii doorashadaa wada galay, hadday noqon lahaayeen asxaabtii iyo urradii xisbinimada u tartamayey, iyo haddii ay tahay musharaxiintii madaxweyneyaasha iyo madaxweyne ku-xigeenimada u tartamayey. intaa kadib waxaan maanta doonayaa inaan halkan ka sheego inaan u mahadnaqayo madaxweynaha muddadiisa dhammaatay ee xilka wareejinaya madaxweyne muuse biixi cabdi sida gobonnimada iyo sharafta leh ee isagoo aan ka warwareegin oon cudurdaar keenin oo aan la meeraysanin natiijadii doorashada u aqbalay. waxaan leeyahay madaxweynuhu maanta wuu guulaystay, waxaanu gaadhay meeqaam ay adag tahay in madaxweyne afrikaani gaadho oo ah meeqaamkii uu gaadhay 1967 madaxweyne aadan cabdulle cismaan oo ahaa madaxweynihii koobaad ee afrika ee doorasho laga helay isagoo madaxweynaha aqbalay xilkiina wareejiyey. u malayn maayo afrikaba madaxweyneyaasha saa yeelay inay ilaa berigaa ilaa maanta ay 5 madaxweyne ka badan yihiin. waa arrin sharaf ah, waa arrin kudayasho leh. markaa madaxweynuhu wuxuu gaadhay berigii dhoweyd ee ololaa lagu jiray waxaa la odhan jiray dhalinyaradu markay musharaxiinta la hadlayaan aabbe hebel. maanta madaxweynuhu wuxuu gaadhay heer aabba afrika loogu yeedhi karo sidii odagii la odhan jiray macalima Julius Nyerere oo isna ahaa madaxweynihii Tansaaniya oo isna xilka ka degay. markaa madaxweynaha maqaamkaas sare ee uu gaadhay ee siyaasadeed isagana waa lagu hambaliyeynayaa. waxaa kaloo iyana u hambaliyeynayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay oo aan leeyahay idinka maanta hambaliyo badan waxaa idinka muhiimsan in laydin duceeyey ilaahay xilkaa culus ee laydin saaray ee garbihiina fuulay ha idiin fududeeyo. madaxweynaha la doortay waxaan doonayaa inaan halkan u mariyo
tala aan doonayo in ummadda ku markhaati ahaato madaxweynihii hore badanaa talada waxaan u barin jiray saxaafadda way madaxweynahan gaari jiray waanu isku xudhnayn ma ahayn maadaama aanu dee siyaasad ahaan salla caleh aanaan meel ka wada hayn laakiin madaxweynahan maadaama aanu isku xusbi nahay taladeedu waxay u badnaan doontaa midaan si toos ah aan u gaadho madaxweyne muuse biixi 2017 markii la doortay waxaan ka mid ahaa dadkii ka soo horjeeday ee madaxweynaha riixayay ee aan muuse biixi dooran markii la doortay laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee madaxweynaha soo hambaliyeeyey ee gurigiisa ugu tegey sababtu waxay ahayd madaxweyne muuse biixi 2017 cadaawad gaari nagama dhaxaynin wuxuu maan islahaa madaxweynenimada madaxweynaha maanta aan dhisay baa kaga habboonaa madaxweynaha maanta aan dhisayna ilaa maanta dadka soo salaamay weli bay oo ma arag sababtuna wax kale ma ahee muraad gaar ah oo aan madaxweynaha ka doonayay baan jirin waxaan dee u socday hogaaminta guud ee waddanka inuu ku habboon yahay markaa madaxweynaha waxaan ula lahaa madaxweyne cid abaal kuu sheegan kartaa ma jirto cid dayn kugu lihi ma jirto cid waanu kula soo shaqaynay haddii aan kuugu baani kartaa ma jirto cid kastoo aad u aragtay inay kula shaqayn doonto magacow annaguna garbahaagaanu taagannahay xukuumad wanaagsan oo tayo leh oo ummadda qancisa dhiso haddii cidu kula shaqaysay annagaa kula shaqaynay wax gaarana kaa dooni mayno ugu dambayn waxaan u mahadnaqayaa dadweynihii soo doortay ee aan u bixiyey candho dhexe ee aan 3 sannadood la hadlayey ee aan waxqabadkooda sida looga hagraday aan ka hadlayey dadweynahaasi markii aanu doodaa u bandhignay ee aanu nidhi annagaa idiin hayna xisbi wax idiin qabanaya si sharaf leh bay nooga yeeleen maanta 16 kun oo cod oo koonfurta iyo beriga Hargeysa oo cadaad leeyay saba wanaaga ayaa dadkaasi xisbiga isbedelka ay ugu codeeyeen ilaahay ka sokobna codka annagana lagu amaaneystay dadkaana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin fariinteedii aqbasheen waa ku mahadsantihiin sidaan loo ajiibtay waa ku mahadsantihiin anna waxay ugu ogaataan haddaad saxaafadda taagnaa jiray oo aan oran jiray biyo ma hayaan oo iskuul ma hayaan oo waddo ma hayaan in wasaaradaha maanta laga bilaabo hor taagnaado ilaa imika xukuumaddeedii baa timee oo aan wasaarad walba idhaa biyihii meeye oo idhaa waxbarashadii meeday oo aan idhaa waddooyinka meeye sidaa aan idiin sheegay inaanu madaxweynaha dan gaar ah kama wadanin halkii ay doorateen baan ugu fadhiyaa halkaasaan ku qanacsanahay danta qaranka iyo danta deegaankii laga soo doortay baan ka shaqaynayaa ilaahay baa mahad leh ilaahay hayna guuliyo Soomaaliland oo dhan subxaana rabbika hal su'aal ku weydiiyo waan ugu su'aal badan ka muddo dhowr cisho muxaafid baad hayd aw la mucaarad baad hayd farqiga u dhaxeeya muxaafidnimada hadda aad ku sugan tahay iyo mucaaradkii hore bal noo sheeg farqiga u dhaxeeya waxa weeye waxaan aaminsanaa in xisbiga iyo siyaasadda iyo hoggaanka aan taageersanaay waddanka kaga ay uga wanaagsan yihiin hoggaankii iyo xisbigii iyo siyaasaddii markaa joogtay waan ummaddii Soomaaliland oo dhan way la qaadatay 3 meelood oo laba dee u codeeyay sidii aan aaminsanaa markaa isbedelku waxa weeye aan dareemayay muxaafidnimadii in taladeedii la qaatay rayigaygiina guuleystay markaa maanta shaqaa noo taalle isbedelkaanu ballan qaadnay baan insha Allah ku dhameynaa